وعشركي لباد maanta waxaan ku baranaynaa qaabka loo abuuro folder samuxuu yahay inta aan cashirka guda gelin aan ka bixiyo fasiraad guud muxuu yahay folderku waxa waaye waa halka lagu keydiyo xogta markii la joogo computerka haddii aan si kale u dhigo oo ka soo qaadno gurigaaga waxaa haysataa dokumentiyo feelal ayaa guriga ku yaala balse maxaa u baahan tahay boorso gooniya oo ku xariisatid oo ku xafidid dhammaan dokumentiyada muhiimka ku ah sidaas si lamid ah markii aad joogtid computerka waxaa u baahan tahay meel aad ku xariisatid all fileska documentiska dhammaan oo meel aad ku xafido oo ku ilaaliso marka computerka wuxuu leeyahay folder oo u dhiganta markii aan ku dabaqno nolol maalmeedka iyo nolosha dadka bini'aadanka waxaa boorso ayaa lagu macnayn karaa oo wax lagu keydsado documentiska feelashada ku muhiimka lagu xafido okay computerka marka wuxuu leeyahay folderkaas wuxuu ka caawinayaa inaad xogtada kala saarato kala nidaamsato oo meel aad ogtahay aad ku keydsato ma fahanti marka tusaale ahaan videos files audios dhammaan ayuu leeyahay pictures waxaasoo dhan waa xog hadhow ku keydsan doonto computerkaaga okay hadda maxaan baranay folderka faa'iidada uu noo leeyahay marka si aan xogteeda isku dhex yaacin waa inaan u samaystaa folders qaanado gooniya meelo gooniya oo aan xogta ku ilaashado oo aan ku keydsado haddaba waa sidee loo abuuraa folder markii aad rabtid inaad abuurtid waxaad tegaysaa shaashadaada waxaa la dhahaa qaybtan bannaan muujeeda computerka qaybta hore oo iconskan dhammaan ilaa hoos ilaa dhinaca wareeg muujeeda dhammaan inta shaashada ah oo ku muuqato waxaa loo yaqaanaa monitor waxaa kaloo la dhihi karaa screen iyadana maxaa waaye waa shaashadii sidoo kaleeta maxaa la dhihi karaa desktop saddexaas magacba waa loogu yeeraa waa monitor screen and desktop marka saddexaas magac haddii aad maqashid waa isku micno okay shaashadaada ama desktopkaaga ama monitorkaaga meel banaan ka tag markii aad meel banaan tago right click ayaa ku dhahayaa ma fahad right click markii aad dhahdid waxaa ka dooranaysaa new markii aan dul istaagaba waxaa ii furmi doona bookis kaleeto bookiskaas ayaa waxaan ka dhex raadin doonaa folder hadda uu koreeyaa mujeedaa folderka uu koreeyo ayaa ka dooranaa click hadda maxaa ii abuurmay folder wuxuu ii wataa magac uu default waxaa la dhahaa magaca uu shayga kusoo dego oo asalka ah originalka ah hadda marka muxuu ii qaatay new folder waa folder cusub enter la iska dheh hadda waxaa ii abuurmay folder cusub ayaa ii abuurmay waa sidaa ujeedin new folder okay aan folder kala abuuro meel banaanaan tagaa right click ayaa ku dhahaa waxaa kasii tagaa new markii aan tago waxaan kasii dooranayaa folder hadda maxaa ii abuurmay waxaa ii abuurmay new folder 2 waa folderkii labaad ilaan computerka wuu tirinayaa inta folder aa abuurtid wuu tirinayaa hadda haddii folder kale aa abuuro number ayuu sii sameynayaa si ay magacyada u kala duwanaadaan enter dheh hadda haddana meel banaan tag right click new folder markii aad hadda maxaa ii abuurmay haddana folder saddexaad haddana ii abuurmay waa maasantiin waa qaabka loo abuuro folder markii la joogo computerka hadda maxaa baratay qaabka loo abuuro marka casharka xiga waxaan ku baran doonaa sida magac loogu baxsado folderka sida magac gooniya loogu samaysto waana maasantiin inta cashar kale ku kulmi doono waxaa idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo ila soco casharka xiga insha Allah